ururka bisha cas ee gobolka Awdal ayaa biyo dhaamis ka sameeyay deegaano hoos yimaada degmada Dila. biyo dhaamintan oo uu ka sameeyay ururka bisha cas deegaanka Duudweyne oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Dila. biyo dhaamiskan ayaa ahaa gurmad abaareed oo ay soo biyo la'aaneed oo ka timiday deegaanka Duudweyne. saraakiil shatare oo ka socota ururka bisha cas oo uu hogaaminayo Maxamed Xaaji Nuur oo ay weheliyaan isku duwaha gobolka Awdal ee biyaha injineer Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha biyaha ee degmada Dila Xaashi Maxamed Cige ayaa biyo gaarsiiyay deegaanka Duudweyne waxayna halkaa ugu shubeen barkad ay ka cabaan dadweynaha deegaankaasi. dadka ku nool deegaanka Duudweyne ayaa uga mahad celiyay deeqda ay soo gaadhsiiyeen ururka bisha cas isla markaana ku tilmaamay mid ka warhaya baahiyaha deegaanka. kamid ahaa hadaladoodii oo ururka bisha cas si hagar la'aana iyo mutadawacnimo ula shaqeeya taas ayaana keentay in aanu maaragtay mar walba wixii community-gu ay dhinacooga qabsadaan ay hay'adaha caalamiga ay u dhaga nuglaadaan oo keentay maaragtay in hore loo soo jawaabo. ururka bisha cas oo ka jawaabaya baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo iyo gudoomiyaha ka hortagga abaaraha iyo mashruucan madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici marwada madaxweynaha Amina Maxamuud Jirde aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin baaqa ay beesha caalamka u jeediyeen si ay uga soo gurmadaan abaaraha. ururka bisha cas oo taa ka duulaya oo la kaashaday hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin German Red Cross ayaa inaga caawisay mashruucan biyo dhaaminta oo bilow ah maanta aan ka bilownay Duudweyne. wuxuu mashruucan biyo dhaaminta aan ka bilaabi doonaa 3 degmo Dila magaalo cad iyo Saylac waxaanu noqon doonaa 3 phase oo kala dambeeya ayaan ugu talagalay in hadba sida maaragtay isticmaalka biyuhu uu yaraado 2 jeer oo kale ayaan ku soo celin doonaa oo aan markan maanta laga bilaabo 2 jeer oo kale oo sida ugu dhaqsaha badan ayaan iyagana bishan gudahooda ama 2 bilood ay soo socdaan ugu talagalay inaan kaga qayb galno abaaraha. waan idin salaamayaa dhammaantiinba wada shaqayn fiican. assalaamu calaykum. waxaa haddii aan warbixin kooban idinka siiyo mashruucan biyo dhaaminta ee deegaanka goboladan Awdal iyo Selel inta tuulo aynu ka dhaaminayna waxaan biyo dhaaminta u sameynaa waxa weeye dhulka abaartu sida weyn ay u saameysay ee ugu sii liita dhulka gabiisa abaartu wada saameysay laakiin dhulka aadka u liita qaybo kamid ah qayb halkan aan maanta sugno waxa la Duudweyne waxa ka tirsan degmada Dila ee gobolka Awdal. waxaan ka shaqayn doonaa kala tuulooyin kale oo iyaguna hoos yimaada Dila oo ay kamid yihiin Iranka Waxaarisley Cadmadooni iyo Sheekh Nuur iyo Wacays Dukur. waxa kale iyadna aan biyo dhaamin ka sameyn doonaa degmada Boorama qayb tuulooyin kamid ah magaalada kamid tahay Walaalgo wadax areas ay kamid yihiin iyo degmada Saylac oo ay ku jirto tuulada leeraa laanta Maraxda oo ka jabay ceelkii biyaha ee Riigay ay ka cabi jireen taana qayb inagu jirta hadda. waxa kale oo noo jira imiga sida waxa marka loogu talagalay dadka nugul ee tuulooyinka degan dadka u sii nugul ama ay ka dhinteen xoolihii amuurkii ay ku dhaansaneen awrtii iyo dameeraha ay ka dhinteen ama si aan xoolaha yar iyo dadka aadka u sii liita ayaa loogu talagalay biyahan. waan maasintii Duudweyne oo meel marka horeba ay bisha cas wax ka qabanaysa oo ah xasaniinta bulshada ama community residence waxa loogu talagalay ayaa dibatana dabaarta ama jiilaa ka dheeraaday ee dhibaatada badan geystay awgeed iyadoo ururka bisha cas ee gobolka Awdal ka jawaabayo ayaa waxa maanta ka fulinayaa inuu hawl biyo dhaamin ka bilaabo. warbixinta hawsha ku saabsan waxaan ku horeysiin doonaa madaxa oo adkaysiga bulshada ama community residence Cali ku soo dhow. bismillah beesha Duudweyne walaalo gudoomiyaha bisha cas ee gobolka Awdal madaxda bisha cas dadweynaha tirada faraha badan leh ee reer Duudweyne waad islaamaya marka labaad
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام هذه بان غفر حسن هاي هذان هاي وزارة الخيرات هي بيها كجوابيدا كجوابتي أورك بشعص قيل دانكي دولة سوماليلاند أي كنا واقضي إن أبار بعني أي كجرتو سوماليلاند هو قامين اليوم مدحين جمهورية سوماليلاند عبد الرحمن عبد الله السيلعي هذه بشعص وقوم مع سنته إن باقي دولة سوماليلاند أي سيدك دقوا جوابته يضرب أبار حني أي جرتو قبل كأوضل قارهان وليبا قبل كأوضل وآد بروها وسيدرين يحد وحين كور قبنا كل هره رواب كوني نوب بالعمين halkay bisha saddexaad inooga bilaabi jireen inay bisha lixaad inoo bilaabmeen habsaanka intaa leeg wuxuu keenay abaaro baxsan oo kala hore ilaa hadda jira waxaan ka warqabnaa in xoolihii uu qululay xeebtu aanay anfac ka soo helin xanuunna ka soo heleen imikana ay soo noqdeen iyagoo itaal daran baaqani wuxuu salka ku hayaa xoogaagii xoolaha ay nagu haray ee xeebta tegey in iyagoo kala lulan neefkii iyo ninkii wataba ay liitaan inay soo noqdeen dowladda Soomaaliland aad ugu baahsan tahay inay baaqaa bixiso hay'adana waa hay'adda koowaad ee ilaa hadda baaqii madaxweynaha ku soo jeediyay gobolkeena hay'adda qore ee ka jawaabtay bilowday si degdeg ah horta in ay biyadaamin degdeg ah bilowday ay ku xigsiiso in meelihii loogu shubayay baan xataa ayaan jirin barkadan quruxda badan leeyno hadda ag taaganahay bisha cas ayaa dhistay waxa loogu talagalay roobka inay roobka markuu doo inay u qabato waxa kale oo barkadan maanta faa'iido leedahay in si degdeg loogu soo gurman karo oo biyo loogu shubi karo waxaynu maanta markaad ka nahay in maanta loogu shubayo ayna ka faa'iideysan doonaan eeriyada Duudweyne markaan biyaha gobolka ka warramo laba aag baa noogu daran bariga gobolka oo dila iyo agagaarkeeda ah ilaa iyo warxasley eeriyadan marka horeba gobolka way ka liidatay oo biyaha rasmi ah hagaagsan looba sameeynin biyaha qoreeyay ay bariga gobolku helaa waa barkad iyo ballay oo in yar hayn kara gobolka intiisa kale u dhaamaa waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda bisha cas in degmada Saylac ay u gurbatay oo meel muhiim ah oo meel muhiim ku yaalay oo banka Giriyaad ku yaala oo laanta marahda la yiraahdo oo muddo laga jabnaa in ceelkaan ay u gurbatay eeriyada oo eeriyada aad u khatar ah oo dadku ku dhimanayaan ay tahayna sida maanta halkan loogu shubayo in laanta marahda iyo agagaarkeedana in loogu shubi doono waxa kale oo rajeynaya inta ay wadaan wixii kale baahiya meelaha kale ee baahida xoog leh ka jirto aagli maaburta li baxlay eeriyada kuma dhan darin qorshaha laayse aagaasina gudoomiye waa aag u baahan oo aag oo maraa ceel baa ka qodnay ceelkii nooba dhameystay kala hore waxa ay ka cabayeen dilay ka cabayeen ceelkii diradda ka cabay ceelka wuxuu boombi ka cabayeen ceelkii bool laftiisa khatar galay markii culays kale oo xoog leh oo aagaasi uu ku soo biiray ceelkii ceel shalay walaha ceelkii waa guri gaaray eeriyadaasna waa eeriya khatar ah aad iyo aad bay bisha cas ugu mahadsan tahay wax qabadka degdeg leh waxa muhiim ah yani in hay'adda sida degdeg ah uga jawaabtaa hay'adaha kale way kaaga muhiimsan tahay halkan waa halkii gobolka ugu darnayd meelihii ugu mudnaa ee in biyo dhaamin degdeg laga bilaabo waxa kale oo loo sheegay in waxyaabaha kale nolosha asaasiga ah inay bisha cas wax ka qaban doonto eeriyadan aad ba bisha cas looga yaqaanaa wax qabadkeeda baraaga aad u qurux badan oo injineer Axmed Xuseen Shaafici uu eeriyadan ka sameeyay oo aad u tiro badan oo bisha cas ay sameysay oo aad u qurux badan baa ka dhisan oo ka duwan meelaha kale ee muxuu baraagaha laga sameeyay aad iyo aad bay uga duwan tahay wax qabadka iyo baraagaha ay ka sameysay oo waxa quree wax looga qaban karayo يعني نوع بيه وحلا إيريا كو هابون يعني إلى إمك وحوا هاون براجعس بدون ياد بان يكون بهذا غير ناس دقة هذا قلت جوابتين باقي مدحين كين روها وسوي شيء بيه هيدها يو انترناشنال كاي يكو لوكال كاي يدولد به يعني لو قول مددك يجي يحلوه ذبه إن بدل ناي يقعد يتعال درنا كي بعدين وقوي جاء عرفين أي نف بده
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudoomiyaha bisha cas iyo dhammaan inta wax ka qabatay waan salaamaya bacsalaan halkan waxa jira abaaro ballaaran baa jira sida uu soo sheegeen intii hore iga horeysay abaarahaas oo ah abaaro xoolaad iyo kuwo dadkaba waxaan baaqii loogu baaqay in ay dawladdu ugu baaqday in maxay hayday iyo dhaamin iyo wax qabad loo sameeyo waxa bilaan ka soo jawaabay bisha cas maanta waan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa biyo dhaamintaas ay la soo gaadheen nugulka area degan oo dad iyo xoolaba leh dadkii xoolihii soo noqday haddaad aragto waxa weeye aad bay u dhibaatoodeen oo maanta ay ugu nugul yihiin abaarta ummaddanna dee waxa weeye abaartii hore ee sanadkii hore ay weli kamay soo kaban oo way aad bay u dhibaataysan yihiin marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa biyo dhaaminta ay la soo gaadheen ummadda nugul wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii la awoodi karo in naloo kordhiyo haddii ilaahay yidhaa iyadoo inta horena aad ku mahadsantihiin kulley hadal badan oo kale cadeed kula warin joognaa aan intaabay kaga dhanta maaragtay intaba way maadsan yihiin waxaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waxqabadka inoo keenay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqay hore umanaan arki jirin runtii waa marxalad aad uga duwan weeye kuwii hore abaaro xillii aan nuu aroornay cadcad baa jiray weli cadcad umaanaan aroorin marka way maanaan heli jirin kolley kaalmahaynkaas aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa bisha cas sidaa maaragtay gudoomiyaha maaragtay community-ga uu sheegay beeshu aad bay u ballaaran tahay 4 jahay u taalla 4 joo iyo xoogaa ka taalla xooguna aad buu u ballaaran yahay waxa weeye annaga oo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayna wixiina soo gaadhay waxaanu codsanaynaa inaanay yacni halkan haddii barkadaad naloo buuxiyo gebigeega haddii hataa naloo buuxiyo beesha eeriyada taalla inaanay hal maalin cabbay ilaahay baa maaragtay na deeqsiin kara baan ka baryaynaa in noo soo buuxiyo laakiin 3 boodood iyo 6 boodood toona hal maalin wax la cabbay noqonayaan wixii awood ah ee la kari karo hala noo biiriya insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadda iyo gabagabo